الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. waxaan ku soo jirnay kitaabkeennii safiinatu najaa fiima yajibu cala alcabdi limowlaahu faslun fiima yadhuru min annajaasaat alladii midka yadhuru daahir noqonayo min annajaasaati najaasaadka xaaluu ka mid yahay alaaatu saddex wey. alkhamru khamradii idaa takhalalad markay khali noqoto binafsihaa nafteeda markay khali u noqoto oo khamradii haddii ay iskeed iyadu ay u noqoto daahir oo intay waxa weeye xal noqoto ay iyadu kala maaxato iyadoo aan wax dawaana lagu darin oo ficil waxa weeye aan loo geysanay iyadu ay darteed u kala maaxato daahir bay noqonaysaa. wajildul maytati haragina daahir buu noqonayaa idaa dubiqa marka la megdiyo iyo wamaa shaygii baa daahir noqonaya saara ahaaday xayawaan shaygii noqda najaasu ahaa oo shay najaasa oo saxara iyo wixii la mida buu ka dhashay awal laakiin wuu ka dhex baxayo waxa weeye xayawaan mustaqila buu noqday isaguna marka daahir buu noqonayaa maxaa yeelay alaslu fi lxayawaanaati addahaara wey asalka xayawaanku waa daahir ilaa shay xarimaya ama waxa weeye la helo mooye. khamradiina way daahir noqonaysaa oo waxa weeye nebiga sala allahu alay wasalam anas bin maalik xadiidkiisii waa taa nebigu waxaa la weydiiyey khamradii haddii waxa weeye khal laga dhigo ka warrano iyo la kala maaxiyo markaasuu nebigu diiday sala allahu alayh wasalam waxaa laga faa'iidaysanaya dee inaan ficil bini aadan insaan aan loo geysan karin laakiin nafteeda dee khali u noqoto markaa daahir bay noqonaysa. haraggiina waxa weeye daahir buu noqonayaa oo waxa weeye haddii la megdiyo oo waxa weeye meytadii haraggeedii haddii la megdiyo iyaduna isaguna waxa weeye daahir buu noqonaya oo nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waatuu xadiidka ku lahaa waxa weeye ayu ibhaamin macnihii harag kasta oo waxa weeye la megdiyaay faqad dahura daahir buu noqonaya. faslun fii aqsaami najaasa najaasada aqsaamteedii buu fasal u yahay. najaasada waa la qaybiyaa saddex qaybood baa loo qaybiyaa. qaybta koowaad waa mid la adkeeyey, qaybta labaadna mid la fududeeyey wey, midda waxa weeye saddexaadna waa mid la dhexdhexayo oo labadaasi u dhaxaysa wasaa'iru najaasaad. najaasada muqalladada la adkeeyey waa eyga iyo doofaarka najaasadooda muqalladaa la yidhaahdaa. qaabka loo daahirinayona 7 goor ayaa waxa weeye la qasaalayaa middood ay tahay ciid ay tahay. labadoodaas marka doofaar iyo waxa weeye ey iyo wixii iyagu ka farcamay oo iyagu xawayaan kaloo daahira haddii ay ka dhaleen waxa weeye uu ey wax ka dhalo ama uu doofaar wax ka dhalo saasaa loola macaamilaya isaguna waa xaaraan waayo maxaa yeelay xaaraan iyo xalaal baa kulmay shay daahira ayuu eygu wax ka dhalay labadaas hadday kulmaanina yajtamaca alxalaalu waalxaaraam ugliba alxaaraam xaaraamta la qaalib yeelaa. tan ugu dambaysa waa mukhafafo waa mid la fududeeyo waa cunuga yar oo aan waxna cunin 2 sanona aan gaarin waxa weeye kaadidiisa wey. tan ugu dambaysa waa saa'iru najaasaad waa najaasaadka inta ka soo harno iyadana laba loo qaybinaya ima inay tahay cayniyo oo mid loo jeedo oo la arko taa loo jeedo iyada waxa loo daahirinaya midabkeeda la zuulin waxa weeye urkeeda iyo dhadhankeedana waa la zuulinaya. tan kale oo xugmiyadaana waa taas cagsi ku tahay midabna male waxa weeye dhadhanna ma laha oo najaasadii waxa weeye dacmi ma leh urna ma laha iyada maxaa la samaynaya biyo un baa lagu soo cosiinaya saasay daahir ku noqonaysaa. intaasuu sheekhu meesha kaga hadlaya raximah allahu tacaala raxmatan waasica. waaya النجاسات وايهي في أقسام النجاسات النجاسات 3 صدح وي مغلظة مثل أتكية ومخففة مثل فذية ومتوسطة مثل حدحاضة. المغلظة مثل أتكية نجاسة الكلب أي النجاسة سوية والخنسير ضوافارك وفرع أحدهما لبضض وحي كفر عمي. والمخففة مثل وحوي لفذية نبول السبي المها يركادي سوية الذي المها صلم يطعم عن عنين غير اللبن عانا وحانا هينو ولم يبلغ أن جارين الحولين 2 سنة. والمتوسطة مدة وحوي دحدحات كان سائر النجاسات كانت صواها ديوية لبضا مركا لقيم هذا. فصل في إزالة النجاسة نجاسة الزورين تدي أي فصل ويا المغلظة نجاسة المغلظة ضاي تدور وحي ظاهر كنا قونا شاء الله ظاهرين ب7 غسالات تطبق غسالمو بعد إزالة عينها عين تدي مركا لسوليو كقضال إحداهن تطبقها ميدود بتراب عيدوي. والمخففة مدة لخفيفية لفودينا تظهر وحي ظاهر كنا قونا برش الماء بيو إن لقوه شيء
عليها كركذا مع الغلبة يدو لغا قالبية يو لغو بدينايو بيه يو إزالة عينها عينتو لزولينيو يدو تاني ويقول بيرتاها بيات منبات كسايرين وانا ilmaha yar waxa weeye kaadidiisii oo de waynu soo marnay taariifkeeda biyaha laakiin waad ka qaalib yeelaysaa sida hadba de curfigu uu yahay biyahaasi aad waa inaad ugu shubtid oo ugu rushaysid waxa ku raacdan caynteedana waa zuulinaysaa wal mutawassida mid dhaxdhaxaadkana tanqasib waxay u qaybsantaa ilaa qismeyn laba qaybood cayniya mid cayniya iyo wax xugmiya mid xugmiya cayniyadu waa mid loo jeedo xugmiyaduna waa mid aan wax loo jeedo lahayn العينية مد عينية التي تيوي لها وحو سغنادي لون مدب أو سغنادي وريح أريا وضعم ردن فلا بد وحا لغا مارمانا من إزالة لونها مدب كذا إلا الزولية وريحها أرتها وضعمها ردن كذا صدح راسا إيدا واجبيسة واي والحكمية حكمية العكس بيكوتها التي تيوي لا لون وح مدب وما سغناني ولا ريحة وح أريا ولا ضعم وح ردن لها إيدا وما سغنان التي تيوي لا لون wax midaba iyo wala riixa waxa way uraya wala dacma wax dhadhana laha iyadoo masuna yakfiika waxa kaaga filan waxa way jaryul maa'i biyo inaad ku socosiiso caleeha dusheeda halkaas uu shaqo kaga soo baxay najaasaadka waxa way noocyadeedii intaasuna inuu ku soo qaybiyay faslun fil hayd wal nifas fasal uu yahay haydku waa dhiiga caadada dumarka ku dhaca iyo waxa way dhiiga nifaaska waa dhiiga yimaada aqbal wilaada dalmada gadaasheedu yimaada haydka ilaahay subhanahu wa ta'ala ba ayadiisa ba asal oo hal subhanahu wa ta'ala wuxuu kitaabkiisa inoo ku sheegay nabiga sallallahu alayhi wa sallam alayhi isagoo la khidaabay yasalunaka 'anil mahid nabiga waxa lagu ku weydiinaya haydkii bay ku weydiinayaan maxaad ku dhahdaa marka qul huwa adan waa dhib weeye factasilu nisaa dumarka ka fogaado ha u dhawaanin xilliga ay waxa weeye dhiga caadada qabaan marka haydkii ahkaam baa ka dhalanayso ahkaamtiisu haweeneydii waxa laga kor qaaday cibaadada nabiga sallallahu alayhi wa sallam markii la weydiiyay dumarka waxa weeye nuqsaata diinteeda iyo waxa weeye naqsaat aqli wa diin marka nabiga waxa weeye su'aasha la weydiiyay ayuu nabigu wuxuu ku yiraahday waxa weeye ma waysan ahayn markay dhiga caadada hesho mid waxa weeye salaada ka tagaysa taas ay salaada inay ka tagayso iyo soonka ayaa waxa weeye min nuqsaan diiniha nuqsaanta diinta la sheegayo واتنا عباداتك أي مر لك قرقاضي فصل في الحيض والنفاس أقل الحيض كأنت وير يوم بيجي عدد أنت وير يوم ومال والليلة همن يوم مالين بوكو إيمان كرا أنت صاوير وغالبه سيدا أقو رون أو وحوي غالب كا ولو بدني هينه 6 ولحوي أو 7 أما تدبا مع الموت أما اللح مع الموت أي هويني بيجي عدد بشي هلي كذا سيدا وحوي غالب كا وأكثره سيدا ugu badanna 15 15 يوما maalmood weey bilayaliha macaliyaliha iyadoo maalmaheeda la qabo 15 maalin ayaa inta ugu badanay gabadhu heli karto dhiigaas haydka uu ku dhici karo caadada aqallu duhriga inta ugu yar been haydatayn gabadhu laba hayd inay daahir ka noqoto inta ugu yar 15 يوما 15 maalmood weey waqaalibuhu sida ugu badanna 24 يوما 24 أفريو لباتن يوما مع الموت وهي و23 يوما 23 مع الموت وحوي إما إنه يسد غالب ك 24 يوما ومركو كل عي لح مع الموت صدن لح لجا جري وحصو حري أفريو لباتن ومركو إنه لنا نسيد غالب ك وحي حياتي قبل يهجر لح مع الموت لح مركي صدن كي لجا جرو وحوي عصو حري أفريو لباتن بصو حري مركو أفريو لباتن أما ما تدبر مع الموت بهالشيء ويانا غالب كي أو تقول راعيه مركوض وسكت تخير أو 23 يوما أما صدق إلى بطن مع الموت أي سيدا غالب كي قبل ظاهر أهان كذا ومركو هالشو تدبر مع الموت بشيء ولا حد مال اللي أكثره بديدي حد مال لما حدين كرو قبل إنيسن هلين بابا لقى يابا وحوي يوسن كبر دعين مركيضنا حد ملها أقل النفاس كديك دلمada waxa ugu yar majjatun hal marinu saa u soo boodo dhigan aqbal wilaada yimaado ilmuhu markuu dhasho ka gadaal hal marinu soo boodo ayaa waxa weeye ayaa ugu yar intaas ugu yar waqaalibu sida ugu badan 40 yawman waa in 40 maalmood socdo oo 40kay ku jirtaa heblo waxa kada weyn garanayn واكثره inta ugu badanna 60 yawman waa 60 maalmood in laba bilood haweeneydii qabto ayaa iyaduna ugu badan halka wuxuu kaga hadlayaa sheekhu
dhiiggii xaydka ahaa ayuu halkaas inoo ku sharaxay oo inoo ku sheegay haweenaydu inta ugu badan ay hesho intay daahir noqon kadho dee kitaabku waxa weeye waa kitaab iska yaro mukhtasare aad baa waxa weye kutubtii waaweyneyd loogu tegayaa haweenaydii dhiiggaas waxa weeye dee caadadu waxyaala inta badan dee dumarku ay helaaniin oo u baahan waxa weye tafaasiil fiican laga bixiyo marka haweenaydii haddii ay dhiiggii ku wareerto oo mutaxayira la yidhaahdo ay dhiiggii caadada ahaaba way ku wareerto xilli ay hesho ma taqaano maxay samaynaysaa way dadaalaysaa waxay samaynaysaa waqtigay is leedahay waa macquul inay xayd leedahay xilligaasay xaa'ido iska dhigaysaa xilliga waxa weeye ay is leedahay daahir baa tahayna daahir bay iska dhigaysaayo cibaadaadkeedii bay qabsanaysaa waxaa ku kaloo iyadana soo raacda haweenaydii waxa weye mustaxaadada dhabar furanka qabto dhiiggu uusan ka joogsan jirin iyadu maxay samaynaysaa dhiiggu kama go'oba mustaxaadaa la yidhahdaa iyaduna waxyaalahan miduu samaynaysaa way mayranaysaa waxay mayraysaa mawduca dami dhiiggaas meeshuu ka yimaado waxayna ilaalinaysaa waxa weeye dhiiggu inuu ku faafo oo wixii waxa weeye inuu faafo ayay waxa weeye u diidaysaa halkaas mawduca uu ka yimaado ayay wax ku qabanaysaa kadibna waa iska weesaysanaysaa laakiin weesada shardi baa ku xiran oo waqti kasta oo salaadu soo galo bacda dukhuulil waqti ba iyadu waxa weeye qabla dukhuulil waqti lama ogola bacda dukhuulil waqti ayay weesaysanaysaa way tukanaysaa salaadii faralka ahay waqti kasta salaad kastana way u weesaysanaysaa maxaa yeelay iyadu hadda intaa kalena inta ay salaadii ku jidho cudurdaar bay haysataa wixii ka yimaada ha ka yimaado laakiin salaad kasta kadib waqtiga salaadu soo gasho duurkii waa la adamay waa la aqiimay haddii aqiimka ka hor adanka way ku tukan kadhaa xilligaas ay weesaysanaysaa way ku tukanaysaa inay meel sii farashato xataa lama ogola salaadii faralka ahayd iyo sunnadiiba way ku tukanaysaa weesadaas laakiin salaad kale kuma tukan kadho waqti kale lama sugi kadho maxaa yeelay dee dhiiguba kama go'o waay marka iyadana hawlaheedu way iska badan yihiin insha allahu tacaala kutubada waaweyn baa loogu tegi doonaa iyadoo tafaasiir fiican culimmadu inuu ka bixinayso wallahu subxana wa tacaala aclamu wa